boqolkun oo dollar oo maxaa boqolkun kaaga bixiyo kugu dhex jira adaha kugu dhex jira afkaasa kugu yeelay inaad armayo aan wada hadal leh wada hadlayna boqolkun oo inaad maxaa kugu haray adi maxaa kugu haray anigu qofkaad wax ka qaadaysid baba ahayba ada lacag la bixino samaahna jir ahaan maxaa kugu haraaday nafqaba kugu sii harta horta xagga jirka iyo waxa ka salaabo dhalmada 7 ciyaal horta ku joogto 48 sanana waa jirtaa 100,000 oo dollar hal iga bixiyana waad leedahay hello 48 ma jiraan 40 jira ko okay adigoo 40 jira oo 7 ciyaal haysta 8 nin hore u soo guursaday ba waxa leedahay 100,000 oo dollar ani hal iga guur nama bikras moodaysa okay bikra diyaar muuta ina 100,000 ka bixisid 300 oo dollar ka badan naak ma laga bixinayba waaba xeer aan soo dejiyay adiga bikra dadane na iyada oo bikra ani fiiri meesha ka fikirayo Ethiopia ka yaabana dhulkeena inay qaadato marka gabdhuhu way guurka raqiisiyaan oo meherka laga dhiga 300 oo dollar Husseeno adu fudees ma ku dhimanay adaaba waxa tahay nasiib laa waa tahay dadku aniga adiga bis ma waxaan ka hadlayo waa wax mustaqbal ah oo shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed baan ka hadlay wax matalaado sax adiguna hadalka ha ka dhigin aniga adiga inaan filin jireeno wallahi aniga waa iga dhab oo magaca Ilaahay aniga waa iga dhab aniga waxaan rabaa duurka in la raqiisiyo oo laga dhigo meherka 300 oo dollar adoo garooba oo 9 soo guursadaa leedahay 100,000 hal iga bixiyo gabadhu markay ku aragto soo iyadoo ka sii dari mayso taba soo qaad ba anoo gabar meeqa iga bixi lahayd adoo gabadha si aan wadankeena waxa uu qabto Kenya u garaaco Ethiopia aan u riixo 300 oo dollar baan yaa meherka ka dhigaysaa